xilli saacadihii la soo dhaafay oo halista caabuqa COVID-19 ee degmada Cabudwaaq ay kor u sii kacaysay ayaa dhalinyarada magaalada Cabudwaaq oo ka jawaabaya halistaasi waxay gudaha magaalada ku qaybiyeen 1,000 xabo oo afxirasho ah taas oo ahayd awoodooda ay markaasi awoodeen xarumaha ciidamada iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado ayay ku qaybiyeen dhalinyaradani ayagoona dadka u raacinayay fariimo wacyigelin ah oo ku aadan halista uu leeyahay caabuqani haddaba markay dhalinyaradani soo dhameeyeen qaybinta afxirashadani ayay la hadleen warbaahinta Sooyaal ayagoona ka warbixiyay faa'iidadu uu leeyahay afxirashadani iyo waliba maanta shaqada ay qabteen waxaan tani saakay ku jirnay ka danqashada iyo kaliidida marxaladda degmada Cabudwaaq ku sugan tahay COVID-19 runtii cudurkan ma ahan cudur inta badan daba qabasho leh laakiin ka hortagiisa ayaa ka wanaagsan ka daba cararkiisa ilaa ku dhawaad qof ayaan waxaan u qaybaynay face mask sidoo kale ku wacyigelinay inay ilaaliyaan qaataana talooyinka wasaaradda caafimaadka ay mar walba nala soo wadaagayso sidoo kale dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee dunida dacaladeeda joogta waxaan baaq dheer ugu dareynaa inay arrinkan ay si gaar ah iska xil saaraan runtii degmada waxay maalmihii u dambeysay la dacalaysay COVID-19 dadka fara badan oo macquul ah oo haldoor ah ayaa u dhintay runtii waxaa dhihi karnaa gaab badan oo dayaca ayaa jira ma jiraan wax isbitaal weyn oo official ah oo COVID-19kii loogu talagalay oo qalabeysan sidoo kale waxaa haba yaraatee bulshadu weli ay ka dhidhin ama dareenkooda muujinba in cudurku uu yahay cudur jira oo halis leh aan ognahay waxa farakulul nagu haya coronavirus baa farakulul nagu haya saameyn xoog badan ayuu ummadda ku hayaa sidaan ognahayna dadku uma baraarugsana in ay wacyigelinta ay qaataan hal jiray xanuunkan inuu yahay xanuun halis ah oo dilay inuu yahay dadku uma baraarugsana ummadda Soomaaliyeed joogta Soomaaliya koo waxaan leeyahay horta ku baraaruga in xanuunkan uu yahay xanuun halis ah la qaatana wacyigelinta wasaaradda ka soo baxaysa waxaan leeyahay sidoo kale wadaadadii Soomaaliyeed jooga quraan akhris ha sameeyaan distance-kii iyo kala fogaanshihiina ha la sameeyo waxaan rabaa si gooniya inaan xagan oo la hadlo dadka ku nool degmada Cabudwaaq oo farakulul uu ku hayo sidaan wada ogsoonahay ilaa hadda 24 saac hadda u dambeeyay ilaa 10 qof hadda dhimashadu waa maraysaa waxaad moodaa dadka hadda Cabudwaaq jooga inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan wuxuu yahay oo qofkii aad u geysid maxaa la dhihi jiray tirada ka fogo qofkan kale uusan ogolaynba shaqalahay inaan halkan kala hadlo ummadda Soomaaliyeed khaas qof kasta oo toolo oo dhimirkiisu joogo walaalayaal sidaan wada ognahay xanuunka corona COVID-19 wuxuu farakulul ku hayaa dunida gaar ahaan Soomaaliya oo laba caqabadood ay ka jirto koow xanuunkii oo xanuun dadku hore u yaqaaneen oo yaani aynan aaminsanayn iyo labo taxadarkii oo hadii wixii wax yimid ay yihiin oo cusub taxadarkii oo aad u yar waxaan jeclaan lahaa marka qof kasta toolo oo codkayagu gaaro anagoo dhalinyarada Galmudug khaasatan aan ka dhaxadlayna magaalada Cabudwaaq in qof kasta toolo oo waxaan leeyahay codkayaga dhageystaa uu aamino COVID-19 inuu yahay cudur khatar ah naftiisa iyo naf kasta toolo oo uu gaarana khatar ku ah dalkan dhalinyarada ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xaalad halis ah ay ka jirto magaalada Cabudwaaq saacadihii u dambeeyayna ay tiro dad ah ugu dhimanayeen caabuqani mana jirto wax gargaar ah oo hor leh oo ka soo gaaray degmadani Galmudug iyo waliba federaalka waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif Sooyaal TV Cabudwaaq